بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي مضى وضيال ميل كستا جوجتان كسو دوادا warka telefishinka qaranka Soomaaliland oo dika imanaya xarunteeda guud ee magaalada Hargeysa warkana waxa idin la socodsiin doona aniga Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuura. Qodobada wararkayga ugu doorka roolna waxa kamid ah in ka badan 80 bakhaar ayaa ku shufeelay kadib markuu dab qabsaday suuqa ganacsiga ee magaalada Wajaale. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay kulankii wada tashiga xukuumadda oo muddo 4 cisho ka socday Hotel Royal Plaza ee magaalada Hargeysa. wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo gaaray dalka iyadoo ay madaarka Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madax kale. intaasi daawadayaal waa qodobada wararka ugu doorka roolna warka iyo warar kale oo fiisan waxaad ku daawan doontaa intaynu warka ku jirno iminkana warkii oo fiisan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay kulankii wada tashiga xukuumadda oo muddo 4 cisho ka socday Hotel Royal Plaza ee magaalada Hargeysa sidoo warkayna ugu hayay wariye Axmed Saki Daahir Xasan. kulanka wada tashiga waxa looga gol lahaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha iyo dardargelinta howlaha qaran ee hor yaala xukuumadda cusub ee uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. kulankaasi wada tashiga ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa muddo 4 cisho waxa uu ka socday The Royal Plaza Hotel and Resort waxaana si rasmi ah u soo xiray oo soo gabagabeeyay kulankaasi wada tashiga ee golaha wasiirada madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu heliyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baasha Maxamed Faarax. waxay xubnaha golaha wasiiradu yeesheen dood istabajoog ah iyo falanqeyn ku saabsan sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda shaqo iyagoo ka doolaya barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka ee labaad iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiya uu ku galay ololihii doorashada madaxtooyada si loo fuliyo ballanqaadadii xisbigaasi. waxaana kulankaasi laga soo saaray qodobo ay ka mid ahaayeen in xubnaha golaha wasiiradu ay si wadajir ah u shaqeeyaan iskana kaashadaan howlaha qaranka ee hor yaala, in qorshaha xukuumadda lagu saleeyo barnaamijka xisbiga kulmiye iyo qorshaha horumarinta qaranka ee labaad, in la xoojiyo siyaasadda arrimaha dibadda lana kordhiyo dadaalka loogu jiro itiraaf raadinta, in la xoojiyo amniga gudaha si buuxdana loo sugo xuduudaha dalka, in la dhiirigeliyo lana fududeeyo maalgashiga si loo abuuro fursado shaqo, in la kordhiyo dakhliga, dib u habayna lagu sameeyo maamulka maaliyadda, in la sameeyo guddi farsamo oo ka soo tala bixisa xal u helidda sixir bararka, in kor loo qaado wax soo saarka dalka, bulshadana lagu dhiirigeliyo in ay tabcadaan, in kor loo qaado adeegyada aasaasiga ee bulshada Soomaaliland loo fidinayo, in dhidibada loo aasan nidaamka maamul wanaaga laguna dhaqmo daafurnaan iyo weliba cadaalad, in la dejiyo qorshe qaran oo ku wajahan ka hortaga iyo wax ka qabashada abaaraha, in dadaal dheeraada lagu bixiyo sidii loo tayin lahaa shaqaalaha dawladda, in hindisaha waxqabadka madaxweynaha ee 120 cisho ee u horeeya ee xukuumadda la fuliyo, wasaarad walibana ay ka qaadato qaybta kaga soo hagaagtay isla markaana ay fuliso. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo si rasmi ah u soo gabagabeeyay kulankaasi golaha wasiirada ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda uu lahaa kulankaasi. aad iyo aad baan ugu hadlayaa golaha wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenkaba hawshan qaran ee qabatana 4 cisho loo dhigi karo rag meel lagu xidhay oo leedaha soo bixina ilaa tala keentaan ilaa aad soo saartaan. waana xeel iska jiray Soomaalida dadkoo dhanba hadday wax xukumayaan dad gor qaadayaan iyo hadday tala adag xalinayaanba caalamkooda waa la go'doomiyaa ciidda la doonayna maskaxda shiiraan oo inaan dadka la soo fargelin maskaxda wax kala soo jeedsan ayaa iska urfi adduunka dhanba qoloba af ay bixisaba. marka hadda 4 cisho waxa la idin xiray oo meel cid la idin geeyay qaranku wuxuu naga soo yahay hawl badan iyo culays badan oo idinka saaran oo inaga saaran dabeetana intaan hawsha gelin inaan ka sii tashano hawsha
oo aad iyo aad u lafaguro axadno dabeetana inagoo fikir ula wada wadana oo meel ula wada socona oo si isku mid ah hawsha u qabanayna inaan soo saaro waqtiga baan ugu yaraa waa teeda marka aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa waqtiga badan rag odayaala oo qol lagu xiray oo afar cisho xidhnaa ama intaasoo caana maal aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa waa hawl qaran waxaan jecelahay inay bilow inoo noqoto in wasaarad waliba gudaheeda intaa in leeg markay wax qabanayso kolka hore intaanay faraha la gelin isku ay tashato in sharciyada lagu shaqeynayo la eego habka loo qabanayo in laga heshiiyo deetana wadar loo dhaqaaqo waayo waa arag badan baana tusaale dadku haddaanan marka hore sida wax loo qabanayo ka heshiin iyo aragtidii sharciga lagu shaqeynaya haddaan laga heshiinin muran badan iyo kala cabasha yimaada iyo isla garashawaa marka taasaynu ka caraaraynaa waxaana noqon doontaa inay dhaqan inoo noqoto oo markii muddo la shaqeeyo mar la isubsado guud ahaan wasaarad bal iyo hay-ad waliba gaarkeeda ay subsato golayaasha kale qarankana sidaa kuma shaqeyno ayaan leeyahay inoo noqoto dhaqan waxaa inoo balana inaynu mar walba wada tashano waxna isxusuusino baryahan dambe waxa caado inoo noqotay in laga xishoodo waxaa ma garanayo weliba ninku haddii meel laga wada magacaabo ama dhowr shahaadiyo wax qaato oo taygaa isku geejiyo sidii gabaygii odaygii afqallo uu sheegayay dhowr iyo xeekii waxa laga yaabaa inuu kaba xishoodo wax la tilmaamo loo sheego ilaahayna qur-aankiisa ku sheegay uu yihi xusuusiya xusuustu muslimiintay anfacdaay marka mar walba iyo saacad walba in wax lagu xisiyo u baahantay iyo wax lagu sheego iyaanad wax kororsato waxaana sunnaa qofku intuu aqoon kororsado ayunbay hogaamintiisa hagaagaysa ama akhri ama dhegayso madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray dadka ay diriirta coladeed ku dhex marayso koonfurta gobolka sool waxaana ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan waxaan halkan baaq uga diraynaa dhammaanteen xukuumadda oo dhan iyo guddoomiyaha golaha wakiiladuba walaalaha isku dilaya koonfurta bari ee sool magaalada quriile dagaalkaasi dagaal loo baahayay maaha dad badanna wuu ku dhintay sanado badanna wuu socday saddex dalna wuu saameeya innaga somalilan iyo soomaaliya iyo ethoobiya wuu sameeya waa halkay saddexda xad isku yimaadaan waxaanu baaq u diraynaa dadka walaala halkaa isku dilaya in caqligu shaqeeyo oo aanu dil waxba kordhinayn muddo ka badan saa la ii sheegay 10 sano uu dagaalkaa socdaa oo kolba intuu dabaha daba soo horaya kol walba ugu yaraan 10 20 intaas qof baa ku dhintay intaas ku dhaawacantay sabab aynu sidaa dagaalka riiqda dheer isugu dhimano oo dadkaasi u dhintaana garan maayo wixii muslina iyo Soomaali ah ee wax garan waxaan leeyahay arinta laga gulmado oo dadka istilaya waa dad Soomaaliyeed waa Somaliland waa Soomaaliya waa kala shaada Ethiopia waa isku family uun xadka ku dhawanta talaaba iyo muslimiinta in loo gulmado arinta xal laga galo waara oo lagu dabiyo ayaan baqaa mudareena wax garadka saddex dawladood ay saameysaba diyaar baan ma qaybteena nabadda ka qaadano oo ay Soomaaliland nabadda hogaamisa mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu ka waramay oo kale qasaraha ka dhashay dab ka kacay magaalada Gabeele iyo waliba degmada Wajaale waxaana uga mahad celiyay cid kasta oo gurmad u fidisay dadkii uu dabkaasi waxyeeleeyay waxa kaloo maanta halkan iyo dhibaatooyin ka dhacday Wajaale xaafad baa gubatay danyaro waliba oo intii danyarta ahayda toddobaad guriga ka badan wixii xoolo hoos yaallay waa gubteen oo waa shaqeeyaan nasiib wanaag halka cid ku dhiman isla maanta tobankii guri Gabeele ku yaal ayuu doo qabsaday hooyadan la ka tagtay carruurtii guriga ka tagtay shan bay ahaayeen mid baa ku dhintay gubtay kala ka baxay inta waa tacsiideena waxaan ugu mahadnaqaynaa dabdamiska Somaliland oo Hargeysa boorba ka gurmaday saddex habeen waxaan u hadalnaa ciidanka booliiska oo aan soo aabay ilaa taliyahooda waa burigi wax gaaray dadka gurmadkii u horeeyay ee ka baxay Hargeysa oo taliyahooda Gabriel Fadal iyo Bermadkii iyo Dudamiskii iyo kuwii boorba dhawaa iyo kuwii Gabriel mar isbiilka ugu badan ku gaaran meeshii waxa gacan weysay dadka Wajaale degan soo aan loo shaqeeyay saar magaalada ku badbaaday
oo magaalada intii weyneed looga gaaray dabka oo dadku iska xidhay darbi ka noqdeen mid baaldi sida mid gaariga jiida mid alaabka ka gura sida laga sheegayay waxa yar dabku u jirsay bakhaar ay ka buuxaan naafta iyo petrol oo gacmaha ka gureen afartii shantii abada meelaha laga saaray shaqeeyo qoladana wax bareeyna in gurmadka iyo fajiraanta aan raahno madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo ka hor madaxweynaha Soomaaliland isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay muddadii uu socday kulankaasi mar waxaan ahay runtii siyaasiyiin isweydaarsanaysa bay hayeen aqoonta iyo maamulka iyo wixii hawl dalka qabiyaala marna arday bay runtii hayeenoo aniguna horjoogo ahayo labadaba isku jirnay afarta cisho runtii aad baa runtii loo kala faa'iidaystay dhan walba waxaa naga tusay biniaadankuna nin dhammaystiran oo wax walba yaqaana ma jiro nin walba intii ka dheedan waxaas leeyahay afarta cisho way u buuxsantayoo borotokool hadday tahay iyo hadday tahay habka midiyaha oo gaabta u dambeysay ducaale halkan ka akhriyay ama ka tusaaleynayay runtii aad iyo aad baa runtii looga faa'iidaystay waa tashigani runtii wax midho dhalihina waan uu ka soo baxayaa waxa la isku dabaqay waayaarimo horoo jirtay iyo cilmiga adduunyada ee imika socda iyo sida maamul wanaag loo gaari karayo iyo sida dawlad wadajirkeeda iyo wada shaqaynteeda iyo xiriirkeeda u shaqaynayo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa isaguna soo dhaweeyay kulankaasi wada tashiga ee xukuumadda cusub anigoo ku hadlaya magaca wasiirada waxaanu aaminsanahay ama aanu isku raacsanahay in kulankii halkan naloogu sameeyey uu ahaa mid aad iyo aad aan uga faa'iidaysanay oo aad iyo aad waxtar u lahaa loona baahnaa kulankaasi ayaa waxa uu ka socday hoteelka The Royal Plaza oo ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa Axmed Saki Daarsan iyo Cabdulaahi Cali Suudi magaalada Hargeysa in ka badan 80 bakhaar ayaa ku shufbeelay kadib markuu dabqasaday suuqa ganacsiga magaalada Wajaale sidoo warbixinta markay noogu soo diray wariye ayaa la xaajiyay dab xoog badan oo naxdin leh ayaa abaara labadii barkii habeenimo ka holcay magaalo xudeeda tag Wajaale dabkana ayaa isagu ku fiday goobaha ganacsiga iyo bakhaarada magaalo ganacsiyeedka Wajaale dabkaasi ayaa burburiyay hanti aad u badan oo ilaa haatan baaxadeeda la qiyaasi karin walow una dabkaasi keenin wax khasaare nafeed ah ilaa haatan lama oga sababta rasmiga ah ee uu dabkaasi ka kacay dadka shacabka ah shaqaalaha gurmadka iyo ciidanka didamiska ayaa xoogooga isku biiriyay si ay u badbaadiyaan dadka shacabka ah ee uu dabku ku sii fidayo waxana goobtaasi uu dabku ka kacay soo gaadhay Sarreegaas Cabdilaahi Fadal Iimaan iyo badhasaabka gobolka Gabiley maayarka magaalada Gabiley gudoomiyaha degmada Wajaale gudoomiye ku-xigeenka Wajaale xogayaha degmadaasi iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee magaalada Gabiley iyo shacabweynaha magaalada Tog Wajaale oo dhammaanba ka warbixiyay xaaladda dhabta ah ee uu dabkaasi geystay waxana hadaladoodii kamid ahaa inta waxba soo gaarina imika wixii ka dambeeyo dadaal fara badan hal la sameeyo oo intii awoodeena aan ilaalinaan leenahay ilaa iyo hadda wuxuu wax u yahay booliiska iyo cidda ay khuseysay ee baadhista haysa wuxuu yahayna ilaa iyo hadda war ma hayno waana la baadhayaa insha Allah gadaalna waa laga soo sheeg dabku wuxuu bilaabmay xalay abaara labadii iyo barkii meelaha waa xilli la hurdo maamulku dadkoo dhan way hurdeen dadkii waashmaaniinta ahaa ee meheradihii u horeeyay dabku qabsaday uumigii iyo diirimaadkii ilaahay de isaga casawajalle isaga ilaahay siduu wax u badbaadiyay qaar ilaahay baa ka badbaadiyay kolkii waraysi laga qaado mahad celino jananka iyo ciidamada booliska iyo ciidamada dabdamiska qaranka oo runtii arrintaasi sameeyay gurmad aad iyo aad u xoogan oo badbaadiyay hanti badan oo degmada ku baabiilahay waxaan jecelahay inaan sidoo inay aad iyo aad uga digtoonaadaan leydhka oo waqtiyada waalidku guryaha ka baxaya inta badan dayacba ku imanaya waxa weeye dabka guryaha ka dhacaya marka dadku inay taxadir gaar ah ay u yeeshaan reer Wajaale maamulka degmada ciidamada booliiska oo runtii aan maaragtay si geesinimo leh oo muwaadinimo leh uga wada qayb qaatay sidii loo baqtin lahaa dabka meeshaasi ka kacay runtii dabkaas iyo wixii keenay
waa la baarayaa xaqiiqada rasmiga ah wixii keenay dabku siduu kacay iyo siduu uu maaragtay ku bilaabmay baaritaan baa lagu wadaa baaritaanka kadib ayuu baana xaqiiqadu soo baxaysaa waxaan jecelahay halkan inaan fariin uga diro dadweynaha reer Wajaale waxaad ogtihiin biyaha inay tahay nolosha koobaad ee maaragtay dadka in Wajaale biyihii la soo galiyay dariiqu faa'iidadu leeyahay waxa weeye waa halkii biyuhu marayeen waa halkii dabdamisku marayay waa halkii gaadiidku marayay waa halkii ambulance marayay waa fariinta waan dirayaa reer Wajaalena waan gaarsiinayaa waxaan leenahay insha Allah biidnillaahi baaris sida ugu dhaqsaha badan leh dhammaan sarfeyga magaalada waa la qaadi doonaa wadooyinka furanna waxa weeye waa la furi doonaa dadweynaha wadooyinka xidhanna waa la furi doonaa dadweynaha reer Wajaale waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan oo ay xukuumadda kala qayb qaataan maamulka sidii wadooyinka loo furi lahaa cidii imika waxa weeye qadar Ilaahay baa dhacay dadka reer Soomaaliland ee xalalka hatooda ku gubatay waxaan leeyahay Ilaahay caawimo wanaagsan ka siiyo waana mas'uuliyadda dhacdooyinka dhaca arrintaasina waxaan ku guda jiraa baaris hadii la yiraahdo adag soo dhacdana waa la baarayaa waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka maayirka degmada maayirka Gabiiley iyo dadamiska qaranka waxaa markii warku soo gaareen la hadlay si degdeg ah soo gurmaday goormana ka soo gurmaday Hargeysa ka soo gurmaday iyo ciidankii booliiska ee gobolka iyo shacabka degmada reer Wajaale oo hadduu had iyo goor dab dhaco waxyaalo kala iman kara ma roob ama beelaqaysi midna ma dhicin aad iyo aad baan shacabka degmada reer Wajaale iyo ciidankii booliiska ee markii lagu jiray gurmadka dadamiska hawsha wadagu mahad celinayaa waan uga mahad celinayaa gurmadkii sidii u baneeyeen oo soo dhaweeyeen gaadiidka dadamiska iyo ciidamada booliiska iyo madaxdii kala soo gurmatay iyo shacabkii iyo gacanta ka geysanay taakulada laakiin waxaan ku baraarujinayaa inay kala qayb qaataan dawladda hoose sidii wadooyinka meelo haddii dab kala yimaado looga gurman lahaa salaam og inay waddo degan tahayna inta aanay soo gaadhin inay wadooyinka sii baneeyaan si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horeysay ee dab ka kaco magaalada Wajaale walow maantana in ka badan 80 meheeradood ay ku gubteen dabkii ka kacay magaalada xuduudeeda Tog Wajaale ganacsatada ku dhaqan magaalada ganacsiyeedka Wajaale ayaa ka hadashay khasaaraha dhabtay soo gaaray ganacsatada ku dhaqan magaalada Wajaale sidoo kale waxay baaq dheer u direen xukuumadda talada dalka isagoo hogaaminaya Muuse Biixi Cabdi Xildhiid iyo ganacsatada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qurbo joog iyo qorqol joogba inay gacan siiyaan dadkii ay hantida badan kaga khasaartay dabkii ka dhacay magaalada ganacsiyeedka Tog Wajaale waxaana hadaladoodii kamid ahaa shirkaasi wuxuu daaran yahay kulankan iyo baaqani masiibada ka dhacday goobta Wajaale ee ay ugu yaraan 100 meheeradood ku gubteen in ka badan 100 meheeradood way hanti aad u tiro badan oo aan wali dalka muddo aad u badan aan ka dhicin ay ku baabaaday mid weeyaan dadkaasi walaalihiina ganacsatada ahaa waxa burburay in ka badan 100 meheeradood oo isugu jirta bakhaaro waaweyn istoodho kaydaha bacadlayaal hodheelo ganacsiga intuu ka kooban yahay oo dhanba in ka badan 100 meheeradood isugu jirta ayaa burburay ganacsatada reer Wajaale marley waxaan baaq u diranaa xukuumadda Soomaaliland galwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi ee waliba cusub iyo ganacsatada reer Soomaaliland ee awalba wixii dadka ka warhayn jirtay ama isku xidhnaa jirtay in dadka ganacsatada qasaaro ku dhacay cidii wax ka qayb qaadan kartaaba ay ka qayb qaadato dhibaatada ku dhacday sida looga caawin karo bini'aadanimada iska soo horjeeda isgaareen mushkiladda ugu weyn saasay noqoto dabkii waxa weeyaan uu sii fiday intii xaggan laga baqtiinayay buu sii horay xaggii magaalada meel loo marana wala way taasi waxa weeyaan marka waxayna tusaysaa inaan wax ku qaadano waxa weeyaan masiibooyinka dhacana wuxuu baa laga faa'iidaa waxaan ka faa'iideynaa waxa weeye inaan dib u habeyn ku sameeyno magaaladeena ku sameeyno dib u habeyn oo lagu sameeyo barandayaashan iyo dhulka soo koray ee magaranaysa soo dhaafay halkoodii lagu celiyo xukuumadda ku celiso haddii xukuumaddu ay iyadu sameyn weydana dadku waxa weeyaan wadada waa loo kala badinayaa imka dadkii hantidu kaga baabaaday in wixii lagu celin karaa ama wixii la tari karo la taro dawladda iyo ganacsatada waayo dad baa hanti badan kaga baabaaday
hanti aad u badan kaga baabaaday dad baan lahayn maxaa la dhahdaa xataa meherad kale oo meel kale ku taalay hal meherad halka ku lahayn lahaa marka taa iyada intaasaan odhan lahaa dadkana mid baan odhan lahaa ilaahay baa qadaray marka qadarka ilaahay lagu sabro oo sabr alla yeeshaan odhan lahaa dadkii hantidu kaga baabaaday inkastoo iska niyad samaayeen intooda badan oo dadkii ugu soo horreeyay baan ahaa markii dabku kacay aytoy katabaysiga musiibooyinka ilaahay keenana lagama hortegi karo laakiin katabaysiga sidii loo xakameyn lahaa in badan maxaa la dhahdaa xil iska saaraa loo baahan yahay oo laga wada tashado maamul iyo ganacsato intaba in laga wada tashado ganacsiga halkaa yaalay dalka meel kastaba wuu saameyn ku leeyahay oo waxbuu ku leeyahay marka waxa weeyaan taas waa taas waxaanu leenahay dadkii wax ku noqday ee hantidoodu kaga baabaaday ilaahay ha u cawilo maanta waxa weeyaan wax naf oo ku go'ay ma jiro laakiin hanti badan oo ilaa 100 meheradood in ka badan oo isugu jira cosmeticyo supermarketyo electroniyaal muxuu ahay bakhaaro raashinka lagu iibiyo muxuu ahay meelo wholesale ah oo muxuu ahay aad u waaweyn aanu kaliya wada jirnay hadday dawladda tahay hadday muxuu ahay ganacsatada dalka oo dhan tahay hadday dadka dabadaha jooga tahay waxaan doonaynaa in gurmad weyn oo muxuu ahay qaran oo muxuu ahay loo gurmado dadka oo muxuu ahay sidii muxuu ahay wixii loo tari karayo loo tari laa aynu geesta kale guri ayaa ku gubtay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxaana gurigaasi ku jiray 3 caruur halka la soo badbaadiyay 2 kamid ah caruurtaasi balse halkaasi ay ku nafuyday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gabadh yar 4 jira wayan la xaji warbaahinta qaranka magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland waxay xildhibaanadu warbixin ka dhageysteen gudida garsoorka iyo amniga ee golahaasi sida warkan loogu hayo wariye Xamse Qurbaani fadhigan ay yeesheen mudanayaasha golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa waxay mudanayaashu warbixin ka dhageysteen gudida garsoorka iyo amniga qodobka koowaad gudidu waxa ay talabixin soo jeedinaysaa in golaha guurtida soo kaashanaya culimada imaamiyada masaajidda culimada waqfista uqaasha waxgaradka kale ee dalka waa in soo saaro oo wax laga qabanayo dhibaatada sifiraysa ee aan indhaha laga qarsan karin ee ay sameeyeen dhalinyarada magaalooyinku ee ay bulshada ku hayaan kana dhashay khasaaraha naf iyo maalba waa wadognahay oo faahfaahin kara oo baahna waa golaha guurtida laftiisu hadda qodobka labaad uu hormood ka noqdaa sidii loo dhisi lahaa xabsi u gaar ah dhalinyarada dhaqan celinta u baahan iyada oo la tashanayo golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda waxa kale oo bariyahan midab ka soo kordhaya maandooriyayaasha ay ka mid yihiin xashiishada khamriga sababaha oo aanay ahayn wax ka mida sababahaasna xuduudda fidsan ee aynu la leenahay dalalka jaarka sida Itoobiya waxa kale oo jira in xeerka mukhaadaraadka oo wax laga qaban lahaa ganaaxiisa iyo ciqaabtiisa kalaba ee ay u fudud yahay sidaa darteed loo baahan yahay in wax ka bedel lagu sameeyo sharcigaasi si wax looga qabto arrimahana iyo ciqaab loogu fulin lahaa gabagabadii waxa kale oo ay gudidu soo jeedinaysaa in xeerarka u baahan ansixinta iyo kaabista iyo wax ka bedelka ee khuseeya arrimaha nabadgelyada in goluhu degdeg u galo oo wax ka bedelna lagu sameeyo qaarna la ikhtiraco xaq baynu leenahay oo arrimaha nabadgelyada golahaynu korbilaabaya kow xeerka mukhaadaraadka xeerka tahriibka xeerka wadaha xeerka argagixisada iyo xeer number 63 xeer oo xeerka booliska waxa kaloo intaa ku daraya haddii la yiraahdo in talada guurtidu ay ahaato in ardayda jaamacadaha ka soo baxaya dugsiyada sare saldhigyada bilayska oo biyada laga qabanayo dambi baarayaasha in dhalinyarada iimaan kale ee aqoonta leh in la dhigo iyagana maalinta sabtida haddii la yiraahdo way siimanayna golahana way bixin insha Allah ilaahayna gaarsiin wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo gaaray dalka iyadoo madaarka Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland iyo madax kale
wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Somaliland u magacaabay madaxweynaha Somaliland dhawaan ayaa si rasmi ah uga soo degay madaarka caasimadda Hargeysa waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay xubno ka mid ah saddexda gol qaran iyo taliyaha ciidanka militariga Somaliland waxaana wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Somaliland dhawaan loo magacaabay uu ka waramay aragtidiisa ku wajahan xilkan loo igmaday iyo sida uu arko kaasi oo uga mahad celiyay soo dhaweynta xubnahan kaga hortagay madaarka caasimadda Hargeysa ee Cigaal International Airport waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha Somaliland min bari min galbeed iyo xeebaha inta ku raacsanba mid waa xaqiiq wadin sheegaya ummadooda Somaliland weeye meel kasta joogaan inta xuduudda dalka Somaliland midayso laakiin waxa la yiraahdaa tabliiqintu dadka mar inay wada gaadho oo ku soo kala horeysaa insha Allah tabliiqa dadka gaarsiinaya insha Allah inaan hadda ka qayb qaato ciise ahaan anigu waliba xoog weyn saaro iguna dhiirinayso runtii ballanqaadkii iyo siyaasadda dabacsanaantii uu muujiyay madaxweyne Muuse Biixi iguna soo dhiirisay inaan gudaha soo galo runtii waxna kala qabto ballanqaadyadiisii uu ballanqaaday madaxweynuhu ballanqaaday inuu siyaasadda furfurayo khaasatan gobolada ka aradan oo deegaanada ka aradan oo ay ka mid tahay gobolka Sanaag runtii aan hadda ka afkooda amaanaan deegaan ka soo jeedo iyo shacabweynahoodaba mudane ciise waxaan aad ugu soo dhaweynaynaa inaan la shaqayn doono inta uu wasiirka noo yahay ilaahay hadduu yidhaahdo si daacadnimo iyo si walaalnimo inaan la shaqayn doono isagana ilaahay inuu ku hadeejiyo inuu madaxdii si fiican noo haagta ilaahay ka dhigo annagana ilaahay naga dhigo kuwii si daacada ula shaqeeya ee madaxdooda ka dambeeya ilaahay naga dhigo wasiir ku soo dhawow si niyadtamidan kugu soo dhaweynaa si daacadana kula shaqeynaa ilaahay hadduu yidhaahdo insha Allah taala waxaan u taaganahay wasiir ciise axmed yuusuf oo aanu ku soo dhaweynayno caasimadda Somaliland airportka Cigaal airport maanta waxaan halkan u nimid soo dhaweyntii wasiirkii gaashaandhigga ciise axmed yuusuf xawar aad baan u soo dhaweynaa wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga loo magacaabay dhawaan gudoomiyaha gobolka Saraar iyo gudida nabadgelyada ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga hadleen arrimo la xiriira dhinaca nabadgelyada sidoo warkan loogu soo diray wariye jaamac boodacade gudiga nabadgelyada gobolka Saraar oo horkacay gobolasaabka gobolka Saraar mudane Ibraahim Xasan Cali ayaa maanta waxay go'aamo cusub ka soo saareen arrimaha nabadgelyada ee ka taagan guud ahaan gobolka Saraar kulankan go'aamada laga soo saaray oo ka dhacay hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Saraar ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliyayaasha ciidamada militariga booliiska asluubta maayirada degmooyinka Caynaba iyo Oog iyo waliba mas'uuliyiin kale kulankan ayaa qodobada ka soo baxay waxa halkaasi kaga dhawaaqay gobolasaabka gobolka Saraar mudane Ibraahim Xasan Cali runtii shir aad iyo aad u muhiima say madaxdii ugu horeysay sheegtay ba halkan lagu qabtay saakaan ku qabanay wuxuu daaran yahay dhacdadii u dambeysay runtii ka dhacday Wadaamago iyo wixii kale xidhiidh la leh iyo guud ahaan nabadgelyada gobolka ayuu daaran yahay go'aan laga soo saaray marka hore 28 bisha maalinta Khamiista go'aanka halkan ka soo baxay waxa weeye labadii qoys waa aadan baalle iyo loogi labadii qoys 15 oday iyo 15 oday qolo waliba dhinaceeda 15 oday in xafiiska gobolka ku yimaadaan maalinta Khamiista keeda bisha 12aad sodonkeeda 2017 oo ku beegan maalinta Sabtidana waa maalinta kama dambaysta ee loo qabtay in gacan ku dhiglayaashii dawladda lagu soo wareejiyo labadii gacan ku dhigle in lagu soo wareejiyo dawladda gacanteeda go'aamada halkan lagu gaaro waxa ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolka iyo degmooyinka looma ogola in qori lala soo galo lagu dhexshifto looma ogola ciidan urursan iyo ciidan abaabulana oo qoriya sidato meel joogto aan ciidanka dawladda ahayn ciidanka qaranka ahayna lama ogola waxa laga yaabaa go'aano hore inay dadku maqleen shicibka la sahashaday maanta waxa naga go'an in talaabo adag oo xanuun la laga qaado wixii runtii ka hor yimaada arrimaha nabadgelyada talaabooyinka go'aanada la soo jeediyay ka hor yimaada waxa la marinayaa sharciga waxa ka odayeynaya maamulka waxa dhexdhexaadin ka gelaya maxkamadaha iyo xirlaalinta gobolka
haba yaraatee wax odayaal kala ah iyo wax xeerbeegti ah iyo cid sheegan doonta inay xadhig tahay kama qaybgeli karaan. si toosa odayaasha ay khusaysay raasaskabaa iman doona, maamulkaa ka howlgeli doona. arrinkaa hore oo dhan waxbaa laga bedelay. sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax, maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf, maayirka degmada Ooga Cabdinaasir Afrikaani, taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Gaashaanle Dhexe Mursal Xaaji Warsame Sugulle iyo taliyaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aagga bari Sareeye Guuto Cali Barre ayaa halkaasi waxa ay ka sheegeen in gacan adag lagu qaban doono cid kasta oo ka hor timaada nabadgelyada iyo xasiloonida dadka walaalaha ah ee iyagu wada dega guud ahaanba deegaamada gobolka Saraar. shirkan ay barasaabkii barasaab ku-xigeenku soo qabanqaabiyeen maantana isugu yeedheen wuxuu daaran yahay ujeedkiisu in gobolka uu beryar badan abaari haysatay oo abaartii kala daadisay in dardargelin lagu sameeyo, hadday tahay xagga amniga iyo shaqaqooyinkii dhacay in wax laga qabto, hadday tahay xagga horumarinta iyo dee gobolkana wax laga qabto. maanta waxaan ku qabsanay shirkigii nabadgelyada gobolka. nabadgelyada marka hore inaa ku noole iyadu inaguma noola. mar labaadka mas-uuliyadda waxa la yahaa waa qaali. gobolkan waxaa ka mas-uula barasaabka gobolka, ciidanka nabadgelyada, maayirka gobolka, intii maanta halkan ay isugu timi wax dadka u dana oo annaga noo dana oo dalka u dana ayuun baynu ka wada hadlayni, waanaanu isku afgarannay, waanaanu qaadannay. runtii waa shir muhiima oo lagaga hadlayo arrinta nabadgelyada. runtii nabadgelyadu waa muhiim, waa arrinta ugu habboon, maadaama kolley mar kastaba ciidanka booliiska iyo ciidamada nabadgelyada iyo gudoomiyaha gobolka iyo maayiradu way ka shaqeeyaan. gobolka ka dhacay si loo soo afjaro labada qodob mid wax weeyaan gacan ku dhiglayaashii in la helo lagu wareejiyo hay'adaha ku shaqo leh. qodobka labaadna wax weeyaan shaqaaqooyinkaasoo qorigii ay soo saareen iyo is-urursi hadduu jiro ciidan in la waayo, qorigiina la qabto, colal hadday jiraan u ururaynaa laga howlgalo. mana yeelayno kaas, ma yeelayno, mana suuragelayo. waa tallaaba laga qaadayaa. wixii qori dambe magaalooyinka la soo galana waa la qabanayaa. wasalaamu calaykum. jaamac boodacade, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Caynaba. maamulka dowladda hoose ee magaalada Berbera ayaa mashruuc dhirbeeris ah ka bilaabay qaybaha kala duwan ee xaafadaha magaaladaasi Berbera, sidoo Mukhtaar Cabdiraxmaan warkan lagu soo diray. maamulka dowladda hoose magaalada Berbera ay heliyaan mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ayaa maanta beeray dhir aad u tiro badan oo gaaraysa ilaa 300 oo geed oo kamid ah 2000 oo geed oo 3 bilood oo soo socda lagu beeri doono xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. waxay mas'uuliyiintu sidoo kale ay kormeer ku soo mareen qaar kamid ah xaafadaha magaalada Berbera iyo mashaariic kala duwan oo ay dowladda hoose Berbera ay hirgelisay. ka hor intii ay socdaalkaasi mas'uuliyiintu ay sameeyeen waxay ka hadleen dhir ay ku beeri doonaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera, waxaana ugu horeyn halkaasi hadal ka soo jeediyay xukuumadda fulinta dowladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Saciid. waxaan hadaladiisii ka mid ahaa runtii maanta farxad weyn bay noo tahay annaga oo sii ambaqaadayna maxay ahaytoy hawlihii 2017 sagootigoodii iyo 2018 soo dhaweynteedii iyo annagoo ambaqaadana shirkii jaraa'id aanu ku qabannay xafiiska duqa magaalada ahna maayarka ku saabsanaa dardargelinta qodobo aanu ka hadalnay oo ay ka mid yihiin guud ahaanba nadaafadda magaalada, dhammaystirka laydhka magaalada, ka saarista xoolaha ee magaalada Berbera iyo beeritaanka 2000 oo geed oo magaalada Berbera aynu ku beerayno oo runtii ah taariikhda markii ugu horeysay maxay tahay magaalada Berbera si buuxda 2000 oo geed oo loogu beero. maanta waxaanu dhagax dhignay ama aanu beernay dhirtii ugu horeysay oo sida aanu ballan qaadnay aanu ka bilaabano si aanu sheegnay xarumaha dowladda hoose iyo dowladda dhexe. maanta waxaanu dhignay 25 geed oo laga beerayo 26 Juun ee hore ahna geerashka weyn magaalada Berbera ee dowladda hoose maamusho, iyadoo lagu dhamaystirayo xarunta guud ee dowladda hoosena ilaa 25 geed oo kale. maanta waxaanu bilownay dhirbeeristii, waynu wadeynaa maalin kasta iyo goob kasta iyo qof kastoo muwaadina oo dhisaya oo beeraya waan kala qayb geli doonaa insha Allah tacaala. sidaan horena u sheegnay waxaanu doonaynaa qofka muwaadinka markuu gurigiisa uu geedka ku beerayo
wuxuu soo qorayaa aanu ka qori doonaa liiskiisa balood nambarkiisa iyo cabirka gurigiisa iyo cashuurta ku waajibtay baanu qori doonaa faylkan ugu gelin doonaa dowladda hoosena wuxuu noqon doonaa mid u diiwaangashan geedkaasi waxaynu ku dabageli doonaa inuu geedkii baxay iyo inaanu bixin waxaan kaloo jecel in uga faa'iidaysto waxa weeyaan waxaa kolleyba dhagaa adeegaya ku dhagaa adeega dadka xoolaha ku dhex haysta adiguna geed baad beeratay isna neef buu haystaa lexejeclo waa lexejeclo geedkaaga markuu neefku ka daaqo waad ku dul xidhanaysaa waxaynu ka qaadi doonaa ganaaxa waxyeeladu geedkaa u geystay qof kastaaba ha ogaado qof kastoo muwaadin waa inuu si xoro u beertaa gurigiisa hortiisa waa inuu ku beeraa meheradiisa hortiisa waa inuu ku beeraa lagu beerayaa dhirtii oo ah mashaariicdii maayarku maanta dowladda ka hadlayay idin baa la qaadatay in magaalada la qurxiyo bilicdii magaalada bilaabatay dadweynuhu u diyaargarooba sidii ay gacan ugu siin lahaayeen dowladda hoose hadday tahay jidad banaynta hadday tahay dhulbeelinta iyo wax kastoo magaalada lagu qurxinayo asalaamu calaykum allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam anuu aada ugu mahad celinaya gudoomiyaha golaha deegaanka xoogayaha iyo dhammaan bahda saxaafadda iyo berbera dhirtan aad iyo aad bay ugu baahnayd waxaana insha allahu tacaala maanta siday u bilaabantay xafiisyada dowladda meel kasta oo xafiisa lagu beeri doono la dhirayn doono insha allahu tacaala wadooyinka iyo istriidaduna aad bay u fiican yihiin waxaa la rabaa istriid walba guri walba oo reer berberi inuu geed beerto waayo meeshu way kulayl waa loo baahan yahay dhirtu waxay soo jiidanaysaa roobkii hawadii bay soo jiidanaysaa mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera wasaaradda maaliyadda ee gobolka awdal ayaa howlgal lagu ururinaya cashuuraha ka bilowday magaaladaasi sida warkan loogu soo dirtay cadar caafiye waxaa maanta olala ballaadhan oo lagu soo xaraynayo dakhliga cashuuraha bariga sanadkan ayaa ka bilaabmay magaalada boorame ee gobolka awdal howlgalkan ay iska kaashanayeen ciidamada wadooyinka iyo shaqaalaha waaxda cashuuraha bariga taasi oo lagu xaqiijinayo sidii gaadiidleyda ganacsatada iyo cid kastoo cashuuri ku baaqatay howlgalka lagu soo xarayn lahaa bishan dabayaaqada waxaana howlgalkaasi lagu arkayay ciidamada taraafikada gobolka iyo shaqaalaha maaliyadda oo wadooyinka ku qabanayay gaadiidkan cashuurnayn guryaha iyo meheradahan ka qaadayay cashuur sanadeedka ee cashuuraha bariga waxaana howlgalkan ujeedada loo qaaday ka warbixiyey taliyaha taraafikada gobolka awdal axmed daahir yuusuf maydhane iyo agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ee gobolka awdal ilyaas xasan barkhadle faarax waxayna ka warbixiyeen ujeedada iyo sababaha kale in wakhtigan ay qaadaan hawshii ugu baaxadda weyneed ee dakhliga cashuuraha lagu soo xaraynayay baryahaaba waxaan ku jirnoo halka saaka hawsheedii weli ku dhex jirnaa muddo 7 iyo samsigba hawl cashuur ururina oo ku saabsan gaadiidka taasoo u badan kala wareejinta gaadiidka road taxiska runtii boqolkiiba 90 horeyba u qaateen dadku laakiin waxa imika badan gurayna ee ku dhiman dadku waxay u badan yihiin cashuurta gaadiidka ee kala wareejinta waxa dadkeena caado ka dhigteen iyagoo cashuur diidan ahayn haddana inay yara canaadaan kala wareejinta oo yiraahdaan maxaan ku dhahdaa dib kugu dhacday maalinta lacag heshay waxa taasina ma waxa weeyaan cashuurta dawladdu ama iyo waqti iyo meel hebel iyo waxa male waa meeshii lagu qabto toddobaadkan ba waxaan ka shaqeynay taa sidaad aragteen imka waxa gaadiid halka ku xireysan iyo kuwa kale oo saldhiga yaala iyo kuwa kale oo soo qaban doonaba waxay u badan yihiin boqolkiiba 90 cashuurta kala wareejinta ee gaadiidka hawshaas oo ka wada shaqeynayna anaga iyo wasaaradda maaliyadda ururin cashuureed ayaynu ku jirnaa oo ilaa bisha 31 way socon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo annagu mar walba cashuur ururinta maalin walba waanu ku jirnaa waxa weeye dadweynahana waxaanu faraynaa inay iska soo bixiyaan cashuurtii lagu lahaa dadweynaha waxaanu sheegaynaa sharafta leh inay iska soo bixiyaan cashuurtii lagu lahaa ee ahayd kala wareejinta iyo ciddii lagu leeyahay road taxkuba waxay isaguna ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay sidoo wasaaradda maaliyadda Idris Xasan Dari waxaana hadaladiisii kamid ahaa baryahanba oo sanadku dabayaaqay yahay waxaan ku jiray olole cashuur ururineed oo aan ku koobnayn inuu wada marisayo kala wareejinta waxa ku jira mactal macaashka ganacsiga mactal macaashka daaraha sales tagaska dhinac walba ha ahaata dhinacyada kastamada baryahanba ololahaasi yaan ku jiray cashuur ururinta oo ah mid waajib oo shaqadayada ah
maanta halkan waxaa la fadhiyay maamulka cashuuraha bariga iyo taliyaha taraafikada gobolka Awdal waxa ay ka shaqeynayaan waa shaqadoodii aad baan ugu hambalyeynaya hawsha ay hayaan waana si laban laabi doonaa mid joogsanaysan ma waa Cadar Caafi TV qaranka Boorama warkana waxa magaalada Laascaanood looga soo diray wariyaha looga soo warama magaaladaasi Barxad Cumar dawladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa olole ballaaran oo ay ku banaynayso wadooyinka magaalada Laascaanood ka bilowday maanta ololahaasi oo hogaaminayo maayarka degmada Laascaanood iyo waliba xogayaha fulinta dawladda hoose iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa dadweynaha xaafadaasi degan ee si mug iyo miisaan loo soo dhaweeyay hawlgalkaasi lagu banaynayo laguna soo celinayo bilicda magaalada Laascaanood halkan waxaanu taaganahay waa kuleeskii magaalada ugu weynaa furqaan maxadka furqaan ilaa buurta sayidka ilaa halka waa soo banaynay jid isku xidhaya magaalada iskoysana dhexdaanu ka ballaynay hawshaana waanu wadinaa insha allah wiigiiba 2 maalmood alxamdulilah waxaan noo hirgashay muddo imanka wadadan waa 3 kiiloomitir 3 kiiloomitir oo ilaa buurta sayidka ilaa maxadka furqaana xaggaana aanu 5 kale u sii wadanno 8 kiiloomitir bay noqonaysaa iskoyskeed wuxuu noqonayay 5 iyo 10 iskoys bay waddadaas yeelanaysaa oo istaraydada magaalada ku dhisan yihiin sidaasaan wadannaa ilaa buurta kale ee hiliblaha iyo intii ay ku sintay ee laamiga kale waanu gaarsiinaynaa haddii alla xugmayo dadweyne waxaanu faraynaa sida ay iminkaba noola shaqaynayaan waad aragtaan ardaydii oo meesha tuman oo heegan u ah oo u heelan inay gacan ka geystaan dadweyne aad bay ugu faraxsan yihiin cid naga caawisay haddaanu dawladda hoosannahay haba yaraatee ma jirto ganacsatada waxaanu faraynaa war hana caawinina bal cashuurta idinku waajibta uun bixiyaanu iska helo marka cashuur la helaa waddo la helayaa sidaan hore u sheegnay amniga markaas u suuro gelayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin saad aragtaanba waxaanu taaganahay isku maxadka oo halkii shaqada ugu dambeysay aan soo gaarsiinay maanta oo bishu tahay 26 waxaanu ka soo dhaqaajinay buurta sayidka intay kiiloomitir tahay waad garanaysaa baaxadday leeg tahay ilaahay mahadi way waxa ilaahay lagu mahadnaqo wadooyinkuna dadweynaha iyo ummadaba waa u dan ee cid gaaray dan u tahay ma jirto magaaladeena inaynu quruxsanno hagaajisano nin walbi waddada iska ilaaliyo inuu ku soo durko yaa loo baahan yahay waa wax ilaahay lagu mahadnaqo meel wacan bay maraysaa hawlgalkuna uu sii socon doonaa haddii ilaahay idmo maalmaha soo socda waa la wadi doonaa qof walba qofkii wadda wax ka sii yaalaan ama wax ka sii yaalaanuu muxuu ahaa ka sii qaado dadweynaha magaalada Laascaanood waxa lagu baaqaynaa war dadweynuhu cashuurta bixiya sanadkii cusub bilaamaya awal cashuur ma bixin jirin cashuurta hagaajiya iskana bixiya waxa idinka doonayaa inaad cashuurta sumcay maxamed aan cali anigu waxaan ku hadlayaa magaca ardayda macadka furqaan hadaan nahay ardayda macadka furqaan waxaan soo dhaweynaynaa horumarka ay ka wadaan dawladda hoose iyo xogayaha gobolka Siciid degmada iyo maayarka magaalada horumarka ay ka wadaan wadooyinka iyo dhismaha bilicda magaalada Laascaanood waan soo dhaweynayaa maamulka gobolka Sool horumarkay ka wadaan baraslaadka iyo maayarka iyo xogayaha gobolka Siciid Xaaji Cabdisalo horumarka weyn uu ka wado gobolka waan soo dhaweynayaa وبرخد عمر أحمد البانت قرن كجمهورية الصوماليلان لاسعانات barasaabka gobolka Awdalna waxa uu faahfaahin ka bixiyay xaaladda nabadgelyada gobolkaasi sidoo warkan loogu soo diray wariye Abubakar Xasan Caafi guddiga nabadgelyada ee gobolkan Awdal ayaa ka hadlay amniga ka jira dalkan Soomaaliland iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliland waxa ay beeniyeen warar been abuur ah oo lagu shaaciyay internetka kuwaasi oo ay ku tilmaameen inaanay waxba ka jirin hadalladaasi lagu qoray website-yada ka jira dalka Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolkan Awdal oo ay cadeeyeen inay qoreen warar been abuur ah barasaabka gobolka Awdal taliyaha xabsiga dhexe oo iyaguna arrimahaasi beeninaya waxa ay tilmaameen mas'uuliyiintii gobolkan nahay xoogaal baanu nahay warkaasi lagu leeyahay dad baa lagu tababaraya xadka labada wadan u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya
galbeedka gobol magaalada Boorama waxa la wax ka jiray ma jiraan dadkii waxaasi sameeyana gacanta lagu hayaa baadhista imika booliska ku haya waxaana la horgeynayaa maxkamadda sharciga sida ay sheegeen ama iiga horeeyeen mas'uuliyiinta halkan garab fadhida warka been abuurka ee aanu maanta cadaynayno inaanay waxba ka jirin ee lagu qoray website-ka oo aanay waxba ka jirin ayaanu shirkan jaraa'id u qabanay waxa kaloo aanu halkan ka cadaynaynaa ama cadaana wada shaqaynta tooska ah iyo wanaagga iyo walaalnimada iyo jaarnimada iyo wada shaqaynta buurada naga dhaxaysa dalka aynu jaarka nahay ee walaalaha aynu nahay Itoobiya aad iyo aad baan runtii uga xunnahay ciddii ku kacday falkaana annagoo u marayna dariiqa saxda ah ee xeer ilaalinta iyo maxkamadda waxba kama jiraan warkaa aad iyo aad baan runtii uga xunnahay in dadka walaalaha ah ee jaarnimada iyo wada shaqaynta buurada ay ka dhaxayso in la dhex dhigo wararka noocaas ee been abuurka ah waxaa fi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama habsami socodka hawsha jidka isku xidha magaalooyinka Burco iyo Balaliigna waxa warbixintan looga soo diyaariyay wariye Siciid Saleebaan Nuur oo naga soo warma magaalada Burco kana waa magaalada Talabuuro ka tirsan degmada Balaliig ee gobolka Togdheer waxa soo gaadhay banaanta iyo dhismaha wadada isku xidha degmada Balaliig iyo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gudoomiyaha degmada Balaliig gudida gacanta ku haysa banaanta iyo dhismaha wadadaasi oo uu helinayo halka magaalada Talabuuro ayaa kulan isxoog waraysiga isla markaana ay kaga tashanayeen sidii loo sii ambaqaadi lahaa dhismaha wadadaasi ku yeeshay magaalada Talabuuro waxaana tilmaameen in wadadu marayso masaafo gaadhaysa 22 kiiloomitir iyagoo fariin u diray ganacsatada iyo qurba jooga ka soo jeeda deegaanada iyo degmooyinka ay marayso wadada in sidii laami loo dhigi lahaa 80 kiiloomitir waa wax yar haddii ummaddu u dhaqaaqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu dadkiisa ku ilhaameeyay ina ay ka midoobaan wuu fulaa niyada waana waana ku soo dhaqaaqnay waana filaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo kamil tiro waxaan ugu baaqaynaa wadada in si degdeg wax looga qabtaa hawsha iyada ah waxaan u sheegaynaa dawladda cusub waa u sheegaynaa mudane muuse biixi cabdi waa u sheegaynaa markaad waxaan u sheegaynaa qurbajoogaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa hantiilaha dalka jooga ee wadada wax ku leh iyo wixii wax ku darsan karaba waa u sheegaynaa markaad wax qabsato yaa wax lagugu daraa oo la yidhaahdaa dee waxqabadkaaga annagu waxqabadka halka kan waa muujinay haddaanu nahay deegaankaa waa muujinay waa wadnaa deegaanka iyo inta wadadana halkaasaa lagu wadaa waxaanu leenahay haddii aanu wax qabsannay waxaanu codsanaynaa oo dawladda ka codsanaynaa oo qurbajoogu dalku dee wax ku leeyahay aanu ka codsanaynaa oo dadweynaha iyo hantiilaha ka codsanaynaa wadadaa in la xoojiyo موسى halkaan markuu ololaha ku jirtay halkaan loogu timid ee halkaan loogu timid halkaan maanta muuse waxba ku weydiisanayno maantana wax ku weydiisayna waa sugaynaa baan ku maadgaran hadalkii maantii aan dib u dhigtay maankii taagan yahay maanta wax geliya madaxweynihii waa sidii uu sheegay gudoomiyihii Talabuureede madaxweyne de shuruudihii maantaanu ka rabnaa Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay wadada in aad si dhaqsale noogu dhagax dhigto marxigtadana aad laamiga noo dhigto dadka ka soo jeeda
qurba jooga degmooyinkan Beledhig iyo nawaaxigeeda waxaanu aad uga codsanaynaa haweenweynaha ururada ka dhisan ama Yurub ha joogeen ama Mareykan ha joogeen inay ka soo qayb galaan oo aad iyo aad uga soo qayb galaan waxaan leenahay dadka u dhashay deegaankan ee qurba joogta ee ku kala nool wadamada hadday tahay qurbaha iyo hadday tahay gudaha iyo hadday tahay maalqabeennada waxaan leenahay wadada war wada aragtaan halkii wacnaday maraysaa waxa uu hadhay in yar waxaan leenahay wadada qof walba kii fadhiyay iyo kii jiifayba fadhiga ka kac u gunto wadadaas si ay ilaamin noqon lahayd waanu inta deynay waanu u reeyan weynay waqtigeeda iyo maalkeeda ku teegay waanu helnay ma aqoon u jeclaan ma doonayna ma ku taageero bulshada ku dhaqan degmada Beledhig oo kaashanaya maamulkooda ayaa habiska wuxuu qabsaa ku bilaabay dhismaha wadadaasi iyagoo tilmaamay inay ka go'an tahay dhamaystirka iyo kamid dhalinta wadada Saciid Salabaan Nuur TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada wararka kale daawadayaalideena waxa kamid ah ujeedada munaasabadan ayaa waxa ay soogeynta xukuumadii hore uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo soo dhaweynta xukuumadda cusub ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi munaasabadan waxa soo qaban qaabiyay ururka Waabo oo ay hoos yimaadaan ururo tiro badan oo ka howlgala dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay maamulaha mashruuca ka dhalayd ee Danwadaag Nafis Maxamuud Jarwac gudoomiyaha guud ee ururka Danwadaag gudoomiyaha dalada iyo duco Hinde Maxamed Geedi gudoomiyaha ururka Ilaas Khadra Cali Qalib gudoomiyaha ururka Qaran Caasha Cali Qalib gudoomiyaha ururka Kasmaal Ifraax Ismaaciil Cali iyo sidoo kale haween kala duwan oo iyaguna ka kala socday ururada ay ku midoobeen Danwadaaga waxaana ay ka warhameen ujeedada munaasabadan ay isugu yimaadeen ururadan ka howlgala dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale waxyaabaha ay qabtaan dadka caawa halkan fadhiya ka kala socdo daladaha kala duwan ee ururada Danwadaag runtii ma aha dad sidii ay hore uga soo dhawaajiyeen weel mareysita ma aha dad maanta ama habeenkan caawa kulankan ay qabteen ma aha mid ay ku xodxodanayaan xukuumadda cusub oo ay wax kaga doonayaan waa dad runtii u qalma in la aqoonsado waxqabadkooda iyo waxtarkooda waa ururo muddo badan soo jiray soo shaqaynayay muddo 4 sanadood iyo in ka badan intaasoo sanadood dhigaal samaysanayay dhaqaalahoodii ay dhiganayeen isku darsaday iyagu isku maalgeliyay dhammaantoodba ganacsiga wada abuuray xubin aan ganacsi haysanina kuma jirto dalladaha halka fadhiya aad arkaysaan waxa weeyaan dallado lamida hay-adaha dhisan ee waddanka ka jira wax kasta oo hay-adi leedahay way leeyihiin haweenweyne ku bahoobay inay la shaqeeyaan xarumaha amniga ee xaafadahooda inay ka shaqeeyaan tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta ee inta badan Soomaaliland ka dhaca haweenweyne ku bahoobay sidii ay iyagu isku filnaansho shakhsiyan ay u gaari lahaayeen iyagoo isku xidhan 20 xubnood oo is ogol isku faraxsan week kasta wada shira lacag iyo dhaqaale dhigta isla marhaantana ku maxay tahay ugu deeqa
ama ku maalgeliya hooyada kolbatii ugu sii haynta yar leh. Marwo Shukri Xariir Ismaaciil oo wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta qoyska iyo arrimaha bulshada Marwo Sahra Maxamuud Xuseen Basbaaso oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka warramay waxyaabi kala duwan ee xukuumaddii hore ee Soomaaliland ay qabatay, halka sidoo kalena ay sheegeen in xukuumadda uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland looga fadhiyo in ay dalka ka hirgeliso waxqabad kala duwan iyo sidoo kale adeegyo kala duwan oo bulshada reer Soomaaliland ay baahi u qabaan. waqtigii la bilaabay jaranjarooyinka kala gedisanay soo mareen fikirka markii la keenay iyo maanta ilaa halkan joogna waxaan ka mid ahay dadka sida dhow ee aad u dhow ula socda in maxaan ku dhahay hawlaha qabateen in sababta ugu weyn ee keenaysa inaan aad iyo aad idinku sii dhawaado oon xogogaal arrintan u noqdo waxa weeyaan waxa gundhig u ah inaan mar walba jecelahay haweenka Soomaaliland inay hore u maraan oo ay wax qabsadaan oo maskaxdooda iyo xoogoodaba ay uga faa'iideeyaan bulshooyinkooda iyaga oo mar walba ku dabaqaya ama ku fadhiisanaya marxaladda markaa dalku uu marayo iyo maxaan ku dhahay meelaha galdaroolada ay gufeeyaan. waxaan noqoteen horyaalkii haweenka Soomaaliland oo dhan gobolada iyo degmooyinkaba sababtoo wali kumaan arag gobolada haween sidaas oo kale isu kaashada oo ururo noqda oo dhaqaalahooda iyo hantidooda iyo shaqooyinkooda intaba iyagu iskifaalo qaata oon cidna bariin cidna u baahan xoogooda iyo cududooda iyo maskaxdoodaba maala aad iyo aad baan marka hore idinku hambalyeynaya waxaan idin leeyahay hambaliyo ilaahayna waxaan idinka baryayaa inaa halkaa iyo meel ka sii sarraysa hamigiina iyo higsigiisuba uu gaadho oo laydinku faano oo aan noqotaan horyaalkii haweenka Soomaaliland. aad iyo aad baan taana idinku ducaynaya si caruuraheeda aynu mustaqbalkeena u dhisno waa inaynu haweenka Soomaaliland ka sharaxan waliba maroodka haweenka ka sharaxan waa inay soo saartaan baarlamaanka iyo dawladaha hoose sidaas ay noo ballana gobolada kalena ay idinku daydaan oo aanu nidhaahno bal caasimadii iyo dumarkii joogay ayaga siday u soo saarayaan. maamulka shirkadda gaadiidka bari iyo galbeed ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen xafiis cusub ay dhawaan ka furteen gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo. maarayaha guud ee shirkadda gaadiidka bari iyo galbeed Cabdiraxmaan Maxamed Aadam oo warbaahinta kula hadlayay xarunta guud ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in shirkadda bari iyo galbeed markii ugu horeysay xafiis ka furatay gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo. waxa uu xusay xafiiskaasi oo usbuucan la furay ay soo dhaweeyeen bulshada ku nool gobolkaasi. waxaan furay gobolka Sanaag socodkayagii gobolada aanu socdaalkan gobolada ugu talagalay runtii wuxuu ahaa socdaal aad iyo aad loo soo dhaweeyay oo goboladii wadanka oo dhan isku xidhay dadkii aad u farax geliyay buu ahaa sidaad xafladii laga furayay aad ka dareemayseen iyo dadweynihii reer Sanaagba aad iyo aad wuxuu ahaa runtii safar aad u qurux badan oo la soo dhaweeyay. Cabdiraxmaan Maxamed Aadan maarayaha guud ee shirkadda socdaalka bari iyo galbeed waxa uu sheegay in mid ka mid ah gaadiidka shirkadda bari iyo galbeed uu dhibaato kala kulmay wadada u dhaxaysa Kalsheekh iyo Ceergaabo. laakiin runtii waxa dhacay arrin aad iyo aad moodid reer Soomaaliland oo dhan inay ceeb ugu tahay jidgooyo ayaa loo sameeyay gawaadhidii Ceergaabo ku socotay ahaa jidgooyadaas oo laga sameeyay meel Ceergaabo ku dhow oo Kalsheekh la yiraahdo. taayiradii waa laga banjariyay oo rasaas baa lagu furay gaariga laftiisa rasaas baa lala dhacay. alxamdulillah dadkii saraa inkastoo runtii rasaas sigtay haddana waxba may noqonin laakiin waxa runtii aanu qaadan weynay oo aad iyo aad noola fool xumaaday dadka waxaa sameeya aan aadna u cambaarayna anaga oo wadnay horumarka gobolka iyo guud ahaan Somaliland way marka dadku isu safro isu tago ayaa horumar yimaada oo fikirka iyo aaraada iyo dhaqaalaha intaba la isweydaarsado. wax lala yaabo noqotay gobolkii aanu inta u sii soconay ee aanu dhalinyarada dalxiiska geynay boqolka ahaa
aanu runtii wax badan intii aan joognay lafteedii laga dareemay inay iska bedeleen dhalinyarada aanu geynay laftoodu aada iyo aad ay uga soo heleen oo ay usoo jeclaadeen gobolka in isla habeenkii ku xigay la yidhaahdo jidgooyaa la sameeyey waxaanu leenahay oo runtii aanu soo gudbinaa inaanan anigu mar raba joojinaynin socdaalka isagaa waxaanu ku faraxsanahay dad wadanka ka xidhnaa oo markuu imanayo somalilandta kale $50 iyo $80 laga soo qaadi jiray inaanu maanta anagu aanu u geyno inuu ku safro qiimo aada u jaban oo $10 iyo wixii lamid ah ayaanu ballan qaadaynaa, joojina mayno. waxaananu leenahay dadka jecel in ay nabadgelyada iyo dhaqaalaha wadanka iyo horumarka wadanku sidaan u jecel nala jecel in arrintaa iyada aanu kaga farxino, aanan u joojinaynin nin israado wadanka kala go, nin cid kale u shaqaynaya iyo nin runtii danaysto isagu danaysanaya midnaba inaanan u joojinayn. waxaanan doonaynaa inaanu gaadhno hadafkii aanu lahayn oo ah horumarka wadanka. say u taagan tahay bariga galbeedna waxa weeyaan inaanu horu marino oo aan dadka baro inay isu tagaan, inay isu safraan, inay wax kala faa'iidaan. ugu dambeyntiina waxa uu laamaha ammaanka Soomaaliland uga mahadnaqay sidii uga howlgaleen dhacdadaasi. runtii waa su'aal wanaagsan. haa, degmada waanu la xidhiidhnay, maayirka waanu la xidhiidhnay, aadna waa arrinta iyada uga xumaaday, aadna waanu ugu hambaliyeen siduu runtii uga xumaaday oo aad iyo aad u fool xumo u arkay arrin fool xun. waxaa kaloo aanu la xidhiidhnay dhammaan hay-adaha amniga, taliyayaasha CID-ga iyo taliyaha bilayska. waxaanu la xidhiidhnay runtii hay-adaha khusayso oo dhan, hadday tahay ta guud iyo hadday tahay ta gobolka iyo hadday tahay ta degmada intaba. aadna waa looga wada xumaaday arrinta iyadaana keyskeeda waa lagu daba jiraa. way jiraan dad u xidhxidhani, anigu ka hor dhici mayno. hay-adaha ku shaqada leh ayaa runtii gacanta ku haya, dad u xidhan way jiraan. baaritaan qoto dheerna waa lagu sameynayaa oo dhammaan hay-adaha oo dhami runtii way ka qayb qaateen. aadna waan ugu faraxsanaysa wax u socdaan. halka warkaasi aad ka daawanaysaanna waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa. gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka dhismaha ee gobolkan Maroodi Jeex mudane Cabdisalaan Cabdilaahi Cali oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada gaadiidka dhismaha iyo xogayaha iskaashatadaasi ayaa waxa ay amaawiir cusub ku soo rogeen dhammaanba gaadiidka dhismaha ee gobolkan Maroodi Jeex. hadaladii mas'uuliyiintaasi waxaa ka mid ahaa: waxaan la hadlaynaa aan u sheegaynaa iskaashatada iskarogooyinka dhammaan meel kasta ay joogaan in la bilaabi doono diiwaangelintii iskaashatada iskarogooyinka meel kastoo ay joogaan lagu aqoonsanayay sharciga ahayd, dowlad ahaan iyo shicib ahaan iyo iskaashato ahaan iyo maamul ahaanba lagu aqoonsanayay inay iskaashatada kamid yihiin. wixii hore u shaabadaysnaa way shaabadaysayin, wixii hadhsanaa ee aan la shaabadayn dhammaan si deg deg ah inay usoo diyaargaroobaan oo berri mooye saa dambe laga bilaabi doono 2 kaantaroor iyo xafiiska guud ee iskaashatada iskarogooyinka gobolka Maroodi Jeex. sidaa darteed waxaan u sheegaynaa shirkadaha iyo mulkiilayaasha iyo xaqlayaasha dhammaan inay yimaadaan si deg deg ay hawsha ay markaa u fuliyaan. wixii magaalada joogay aan kaantarooda gaarin inay xafiiska guud yimaadaan ee iskaashatada. wixii kale kaantaroorada loogu shaabaday doonaynu geyn doonaa. gaari aan sharciga u hoggaansanina waa laga joojin doonaa shaqada, meel kastuu joogo waa laga joojinaya. diiwaangelintu waxa weeye shaabadii iskaashatada weeye. marka horena iskaashatadu waxa weeye cashuuray liisan bay leeyihin. shaabada dawladda hoose ogta weeye oo sharci ahaan kasoo baxdo dee shirkada loo geliy wey. taas ayaa diiwaangelinta meel bay ugu joogtay. baabuurta gaadiidka barbaa diiwaan gashan, inkastoo cashuurta lagu leeyahay cashuurtii aanay bixin, sanad cashuuraadkii laga qaadi lahaa aanay bixinin, dhaqaalihii ay bixin jireen aanay bixinin. markaas sidaa daraadeed gaadiidkii ay shaabadu lambar ugu joogtay. shaabada lambarkeeda way diiwaangelintii socotay berigaa markaa istaagtay ayaa imika dib loo cusboonaysiin insha Allah bismillahi kariim. sidoo kale mas'uuliyiintani waxay ugu baaqeen maayarka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko inuu wax ka qabto baahiyo ka jira goobaha danta guud ee ay ka shaqeeyaan amaba ay ka howlgalaan gaadiidkani.
maayirka waxaan uga baahannahay meelihii naga xidhnaa sida dooxa bariga ka galbeedka in isrogooyinkii loo furo annaguna casuurtii aanu diyaar garayno taasi waa ta dowladda ta iskaashatada waxaanu ogeysiinaynaa iskaashatada iskarogooyinka ee gobolka Maroodi Jeex in dhaqaalihii iskaashatada la bilaabayo gaari kasta wixii ku waajibay la qaadi doono gaariga bixin waayana talaabo sharciga waafaqsan in laga qaadi doono geesta kale xubno kamid ah gaadiidleyda dhismaha ee gobolkan Maroodi Jeex ayaa waxa ay sheegeen inay u hoggaansameen amaawiirta ka soo baxay maamulka iskaashatada iyaga oo ballan qaaday in ay fulin doonaan waajibaad kasta oo sharciya amarka ay fuliyeen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaad gaadiidleyda Maroodi Jeex waa u hoggaansanahay annagu haddii aanu nahay waliba istaankan ayuu Hargeysa waa bar bilownay taayadii ma waxaan ayinsanahay arrinka uu maamulaha gudoomiyaha iskaashatooyinka iskarooyinka uu nagu soo faray haddaanu nahay istaanka galbeedka ina faarax shoomay iyo kilinkaba hawsha iyadu mar hore bilaabantay welina way socotaa aad baan ugu mahad celinaa maamulka iskaashatada guud ahaan baddaawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warka telefishinka qaranka Soomaaliland waad ku mahadsantihiin qadarka aad daawateen warkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuura dhammaan intii ka qayb qaadatay waxaa idin leenahay salaamun minallahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh